dowladda Itoobiya ayaa waxa ay ka cabsi qabtaa in volkaanada ka qaraxday gobolka Canfarta ay ku faafto Itoobiya oo dhan. intaan sheekadan u gudagalin haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid. dowladda Itoobiya ayaa boqolaal qof waxa ay ka rartay aagga hadda uu ka socdo volkaanada ee gobolka Canfarta ee dalka Itoobiya. volkaanadan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay ka qaraxday gobolka Canfarta ee dalka Itoobiya, waxa ayna ku sii faafaysaa guud ahaan gobolkaasi iyo deegaanada u dhow. dadka ku nool deegaanada u dhow gobolka Canfarta ayaa markii horeba isaga barakacay sabab la xiriirta iyaga oo ka cabsi qaba in ay soo gaarto ama ay waxyeelo ku reebto volkaanadan ka qaraxday gobolka Canfarta. dowladda Itoobiya waxa ay walaac xoogan ka muujinaysaa in volkaanadan ay ku faafto Itoobiya oo dhan. volkaanada waxa ay ka mid tahay astaamaha lagu garan karo in uu dhul gariir soo socdo. toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo dhul gariir ah oo 10 mar ka badan ka dhacay guud ahaan dalka Itoobiya, waxaase si gaar ah looga dareemay gobolka Canfarta. sidoo kale magaalooyinka laga dareemay dhul gariirkaasi waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, taas oo ku nool yihiin dadka ugu badan ee Itoobiya ka soo jeeda. dowladda Itoobiya waxa ay ka rartay guud ahaanba gobolka Canfarta iyo dadkii u dhowaa, maadaama gobolkaasi hadda ay ka dilaacday ama ay ka qaraxday volkaano cadaab u eg. dadka qaarkood waxa ay sheegayaan in ay tahay tani musiibo dadka adduunka ku nool lagu tusayo oo loo soo hormariyay qayb ka mid ah qiyaamaha dadkana looga baahan yahay in ay ku tusaale qaataan sida ay u ekaan karto naarta, maadaama ay volkaanadan dabka ah ay ka qaraxday gobolka Canfarta ay aad u ololeyso. dadka falanqeeya arrimaha dhulgariirka ee juqraafiyadda wax ka bartay ayaa sheegaya in tani ay u eg tahay naar yar oo adduunka lagu tusayo dadka ku nool, maadaama dadkii hadda ay u bateen dhanka xumaanta cibri qaadasho in ay u noqotona looga baahan yahay dadka hadda adduunka ku nool, gaar ahaan dadka ku nool Afrika. dowladda Itoobiya waxa ay hadda walaac aad u xoogan ka muujinaysaa volkaanadan ka qaraxday gobolka Canfarta, iyada oo hadda doonaysa in gurmadyo loo fidiyo sidii lagu soo afjari lahaa volkaanadan hadda ku ega gobolka Canfarta iyo deegaanada ku dhow.